السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي القضبة بندقات كدابة دونتا وحا كميدا كوهو بيسن او نبادون كودلي بلد ويني مصر او حبسي كسي ديسي قبر سومالي او اسكا دفاع دنين اسكو دي انو كوبسادو galmudug oo sheegtay in ay bilaabayso dhisida golayaasha deegaanka Iiraan oo xoog kula wareegtay markab sida shidaal fadlan hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir saaxiibadaada la wadaag ku mahadsanid aynu ku bilaawno saaxiibayaal fadlan hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir saaxiibadaada la wadaag YouTube ka subscribe noo saar page ka follow dheh ku mahadsanid wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi kooxo hubeysan ay ku dishay nabadoon cali dheer oo kamid ahaa waxgaradka ugu miisaanka culus ee magaaladaasi goobjoogyaal ayaa sheegay in marxuumka xilliga la dilayay uu ku sii jeeday xaafadiisa oo ku taalo xaawataako ee magaalada Beledweyne sidoo kale waxaa la sheegay kooxdii dilka geysatay ee iskaga baxsadeen waxaa goobta gaaray laamaha ammaanka ka sameeyay baaritaano lagu soo qaban cid ka dambeysay dilka nabadoonka gabar Soomaaliyeed 15 jir ah oo ku nool dalka Masar ayaa si weyn loo hadalhayaa kadib markii ay dishay darawal mooto nooca loo yaqaan tugtugle ama bajaaj la sheegay in isku dayay inuu kufsado gabadha Soomaaliyeed ayaa isku soo dhiibtay booliska Masar waxayna qiratay inay dishay darawalka oo ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu furxumeeyo gabadha gobolka Geezi sida ay qortay wargeyska Al-Masari al-Yawm gabadhan Soomaaliyeed ayaa timid saldhigga booliska ee 6 Oktoobar ama 6 Oktoobar iyadoo uu la socdo qareen xiriir la leh hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee dalka Masar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug mudane Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Omar Cabdi Maxamed ayaa kulan la qaatay gudoomiyaasha gobolka Mudug wasiirka ayaa kulankani warbixin uga dhageystay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmooyinka iyagoo ka warbixiyay xaaladaha nololeed iyo amni ee ka jirta deegaanada iyo degmooyinka Mudug ugu dambeyntii wasiir Cabdi Maxamed Jaamac ayaa ugu baaqay dhammaan maamulada degmooyinka in ay diyaar garoobaan dhismaha golayaasha deegaanka ee gobolka degmooyinka Mudug